dal kasta dakhligiisa ayuu ku hormariyaa ummadda ku nool. Soomaaliya waxa ay muddo la tacaalaysay dhaqaale xumo iyo qaabdaro loo isticmaalo dakhliga dalka ka soo xarooda. Horaantii sanadii hore markii dowladda cusub la yagleelay, ballanqaadyadeedu dowladdu waxa ugu waaweynaa sidii dalkan wax soo saar dhaqaale uu u yeesho si looga maarmo kaalmada shisheeye. haddaba si aan wax badan uga ogaado dakhliga dalka ka soo xarooda iyo deeqaha ay bixiyaan beesha caalamka sidee loo isticmaalaa, ma yihiin kuwo wado sax ah la mariyo mise waxaa ku laban musuq iyo isdaba wareejin. waxaan maalmo ku noqnoqday wasaaradda maaliyadda oo aan qaybaheeda kala duwan ugu kuurgalay sida ay u maareeyaan dhaqaalaha dalka. wasiir cabdiraxmaan ducaale bayle ayaan la kulmay. waxa aan weydiiyey isbeddelka uu la yimid tan iyo markii loo magacaabay wasiirka maaliyadda. sanad iyo imika waxa weeyaan marmar 4 bilood 5 bilood meelahaas waxaan isleenahay wax badan baa qabsoomay xagga maaliyadda. waxa qabsoomay in aan dib u habeynay maamulkii maaliyadda. ayaan oran karaa waxa ugu weyn qabsoomay waxa weeye maamulkii maaliyadda in dib loo habeeyey, in la adkeeyey maamulka lacagta, in tallaabooyin la qaaday in la soo kordhiyo dakhliga dalka soo gelaya, in la isku qiyaaso waxay naga baxaya iyo waxayna soo gelaya, in la isxakameeyo oo haddii aanad lacag haysan aanad waxba iska gelin oo la baro dowladda xubnaheeda kala duwan inay kharash garayn karaan waxay haystaan, in la sameeyo budget inagu filan. ma garanaysa aan ka naaqishnay, ka wada hadalnay, wasaaradu ka wada hadleen, la islana gartay. ma odhan karo mid laysku wada raacsan yahay buu yahayo waxaan haysanaa iska wax yara, laakiin haddana in laga wada hadlay. marka waxaa noo soo kordhay waxa weeyaan inaan kalsoonidii adduunyada aan helayno inteeda badanna helay, sidaan habkaan u maamulayno waxa maaliyadeena soo gala kuna iskuna daynayna inaan korino. waxaa kaloo la gaadhay ama xoog loogu tallaabsaday in dadka Soomaaliyeed ee mudan ee cashuuraha bixiya iyagana kalsoonidooda la isku dayo in la helo. macnaheeduna yahay inay ogaadaan wixii halkaa dowladda soo gala inuu wax ku filan lagana wada hadlay ku shaqaynayo. waxa aan gaadhnay in budgetka ansixiyey baarlamaanku iyo kabinetku golaha wasiiradu ay yihiin qaanuunka inahaga appropriation billka la yidhaahdo inahaga waa dhinacna looga bixi karin. waxaan gaadhnay qof walba inuu isagu isku tashado, ama ha ku yaraato ama ha ku badnaatee waxaa ku soo galay haddaad wasiir tahay iyo haddaad hay-ad kale ka madax tahay inaad waxaa ku tashato ayaa la gaadhay. waxaan isleenahay si wanaagsan baan usoo tallaabsan u socnaa. waxaan gaadhnay in waa lagu celceliya arrintaas, laakiin arrin aad iyo aad muhiim oo weeyaan baafo waxa weeye in qofku hadduu shaqeeyo ku talagalo inuu mushaar qaato bishu markay dhammaato, inuu qofku ku talagalo haddii aanu shaqayn in mushaarada laga jarayo uu ku talagelaya, haddaanu shaqayn laga jaro, hadduu shaqeeyana mushaar qaato ha yaraato ha badnaato. wadarta guud ee dakhliga dalka ka soo xaroodo marka loo geeyo deeqaha ay shisheeyaha bixiyaan ayaa lagu bixiyaa miisaaniyadda dowladda, mushaaraadka iyo ciidanka. lacagaha soo hara dowladdu siday ka yeeshaa? ma jiraa kayd dhaqaale ee uu dalkan leeyahay? deeqaha la nasiyaa wixii ina soo gala dibadda inaga soo gala waxay u qaybsamaan dhowr qaybood bay u qaybsamaan, laakiin laba ugu weyn. labada ugu weyn mid waxa weeyaan kabka lagu kabo budgetkeena, miisaaniyadda lagu kabo. soo budget baad soo diyaarisay, waxa la waxa kharash baad soo diyaarisay, kharashkii waa intaasa, minimumkii waa intaasaa tidhi, waxay kaa soo geli gudaha, wixii kale kabbaad meel ka dooni. mid waa kabkaa weeye oo budgetka ku jira. midna waxa weeye mashaariic lacag ka soo gasho, iyaguna budgetka waa ku jiraan, laakiin mashruuc ahaan baa loo maamulaa. intuba waxa ay hoos yimaadaan maamulka maaliyadeed ee wasaaradda ay hoos yimaadaan.
qola walbana waxaanu diyaar u nahay lana seexana inay lacagtaas halka ku baxaysa la isla ogaado lacagta mashruuc bay leedahay mashruucaasay ku baxaysaa dadka ka shaqeeya sidii loo habeyn lahaa ayaa laga heshiiyaa sidii loo dhaqangelin lahaa looga shaqaalaysiin lahaa baa laisla mushaaraadka iyaga ku baxaya ayaa laisla eegaa marka habka maamulka dowladeed ee toosan ee loo maamulayo lacagta ummaddu leedahay ayuunbaa loo maamula waxaasoo dhan dalku federaal ayuu qaatay oo aan weli dadku ay fahansanayn qaabka uu shaqeeyo waxaa sidoo kale dalka markii ugu horeysay uu yeeshay aqalka sare dastuurkuna waa qabyo weli dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah si heer federaal uma wada shaqeeyaan haddaba ma jirtaa nidaam lagu midayn karo canshuuraha guud ee dalkan ka soo xarooda madaxdu waxay ku heshiiyeen khayraadkeennu inaanu inaga dhumin ya bilaana waan heshiin weyne inaanu inaga lumin aan heshiino aan ku heshiin in la qaybsado habkiina waxbaa laga sheegay madaxda sare habka ambareelada guud bay dhigaysaa maaragta dalada guud bay dhigaysaa dalada guud markay dhigto wasiirada maaliyadda oo anigu aan chairman-ka wahay ayaa markaa u taallaa inay sii qeexaan siina lafaguraan ayay u baahan tahay lafagurkaa waan ku jiraa markaa taasi waa taa wey arrimaha kale ee midaymaha waddankani wuxuu ku socdaa inuu dal keliya noqdo waana yahay of course waana yahay dal keliya laakiin muddo ayaa qoloba xayniba meel ku oodnayd maarata xayniba meel bay ku oodnayd muusaskii inoo dhexeeyey waa la laabaya ya annagu haddaan maaliyadda nahay already waan laabnay runtii waxaan kulanaa 3 biloodba mar baan kulanaa meel isugu nimaadnaa danaha ummadda xagga maaliyadda ayaan lafaguraa isla ka sheekaysanaa waxa ugu waaweyn doonayna sameeyna waxa weey dalkan wixii soo gala cashuur isku mid ah laga qaado meesha doona baa ka soo gala cashuur isku mid ah in laga qaado waxyaalaha qaar waa midaynay waxyaalaha qaarna iminkaan ku tala jiraa customka inaan midaynaan ayaan ku tala jiraa shaqooyinka sidii loo kala qaybin lahaa baan gudageli doonaa yani shaqada state ku leedahay iyo shaqada federal ku leeyahay in la isla garto Soomaa taasaan gudageli doonaa taasina waxay markaa sal u noqon doontaa cashuuraha la qaadayo nooc ay yihiin cashuurta ay qaadayso state ku iyo ka federal ku qaadayo waxay base u noqon waa basekeedu wuxuu yahay shaqada la qabanayo iyaga lagu haleeyay shaqada federal ku qabanayaan taana iyadana waa ku guda jiraa waxaan isku wada waafaqsanahay in arinta inta la guda galo waddankan cashuur kale yeesho meel kasta laga soo galo gudaha iyo dibadda wixii ka soo gala